Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalkeena Asnac Medical Center. Waa walaalkiina Dr. Cabdisalaam Nuur Axmed. Maanta waxaa qaadan doonaa xanuun baabi'iyaal. Painkillers ayaa maanta qaadan doonaa insha Allah. Painkillers waxaa u qaybinaynaa laba nooc, analgesic iyo antibiotics. Analgesic maxaa la dhahaa? Analgesic waa daawooyin loo isticmaalo in lagu yareeyo xanuunka, pain in lagu yareeyo ayaa loo isticmaalaa. Antibiotic maxaa loo isticmaalaa? Waa daawooyin loo isticmaalo in lagu yareeyo qandhada, feefarka in lagu yareeyo ayaa loo isticmaalaa antibiotic. Mararka qaar waxaa la sameeyaa labadooda ayaa la isku daraa si daawo active u soo baxdo, sida sharoobada hadda aan aragno ibuprofen oo kale. Ibuprofen waxay ka samaysan tahay analgesic iyo antibiotic, labadaba way ka samaysan tahay. Mararka qaarna waxaa la sameeyaa analgesic group ayaa la soo saaraa, waxaa kaloo la soo saaraa antibiotic group, labadu waa la sameyn karaa. Marka waxaa jiro laba nooc oo analgesic ah, waxayna kala yihiin opioid analgesics iyo non opioid analgesics. Haddii aan fiirino opioid analgesicska, waxaa ka mid ah daawada loo yaqaano morphine. Morphine waa daawo xanuun baabi'iye oo aad u khatar ah oo fiican, xanuun baabi'iye adag waaye. Inta badan waxaa isticmaalo dadka isbitaalada ka shaqeeya oo kaleeta, dhaqaatiirta isbitaalada ayaa loo isticmaalaa. Qofku marka uu jabo xanuun daran uu hayo ayaa loo isticmaalaa, laakiin lagama helo inta badan private pharmacy oo kaleeta lagama helo. Sidoo kaleeta codeine iyadana waa xanuun baabi'iye aad u fiican oo aad khatar u ah oo qofka xanuun daran markuu hayo la siiyo. Iyadana isbitaalada ayaa laga helaa oo private pharmacy inta badan lagama helo. Codeine-tan iyadana waxaa loo isticmaalaa dadka marka jabaan oo kaleeta, qaliimada adag markay galaan, xanuun daran marka uu hayo ayaa qofka la siiyaa. Tramadol mararka qaar pharmacy waa laga heli karaa, laakiin inta badan laga helaa isbitaalada waaweyn, laakiin waa laga heli karaa pharmacy-ga. Tramadol iyadana waa xanuun baabi'iye aad khatar u ah oo loo isticmaalo qofka xanuun daran markuu hayo, jug culus markay ku dhacdo oo kaleeta in lagu yareeyo, xanuunka looga yareeyo. Qofka markuu qalliin galo oo kaleeta xanuun daran oo hayo, ama qofku markuu u jabo sidoo kaleeta iyadana waa la siin karaa. Waa xanuun baabi'iye aad khatar u ah oo aad u fiican waaye. Laakiin baryahan dambe dadku waxay u isticmaalaan acid drug ayay u isticmaalaan, si qaldan ayay u isticmaalaan oo qofka waa arkaysa ku dhahayo aniga tramadol markaan cuno wax badan ayaa qabanaya. Tusaale shaqo kaleeta markuu qabanayo tramadol dhowr xabo ayuu cunayaa oo qofka jirkiisa ayaa sumoobayo oo jirka inta badan uu la qabsanayaa. Qofkaas saas oo asoo fiican cunay tramadol, markii oo wax ku dhaco kaleeta tramadol haddii la siiyo, codeine haddii la siiyo, morphine haddii la siiyo, inta badan waxba kama tarayaan. Qofka xanuunka sidiisa ayuu u hayaa, oo waayo stage-ki loogu talagalay daawadan mar hore ayay jirkiisa adaptation la sameysay, waxba kama tarayso. Waayo waxaa la rabay markii xanuun yar uu hayo paracetamol waxyaalo yar inuu cuno, laakiin qofka asoo xanuun hanin in uu energy ku helo oo ku shaqeeyo ayuu wuxuu u soo gatay ama u qaatay tramadol. Markii xaaladda xanuunka uu imaado, tramadol jirkii mar hore ayuu la qabsaday, waxba kama tarayso. Marka dhibaato waayadan dambe taagan waaye. Marka qofku waxaa u wanaagsan in uu iska ilaaliyo in daawada si qaldan loo isticmaalo, dadka laga wacyigeliyo. Inta badan waxaa fiican in dadka ka shaqeeyo public health workers ah, community health workers oo kaleeta, in si fiican dadka uga taxadiraan, dadkii oo wacyigelin loo sameeyo, health education loo sameeyo. Marka qofka wixii haddii laga sheego laga dhaadhiciyo wixii inuu qaato macquul waa, laakiin haddii aan loo sheegin wixii isticmaalkiisa uu sii badanaya. Marka maalmaha dambe waa wax noogu badan, khatarteedana iska leh. Marka waxaa fiican in laga taxadiro oo qofka laga wacyigeliyo, bulshada laga wacyigeliyo. Morphine daawadan waxaa loo isticmaalaa xanuunada daran. Daawadan waxaa laga soo saaraa dhirta, plants ayaa laga soo saaraa, animal xoolaha ayaa laga soo saaraa. Daawadan waxa ay ka mid tahay daawooyinka aan dhakhtar la'aan la isticmaali karin, sababtoo ah waa daawo maandooriye noqon karta haddii si qaldan qofka uu isticmaalo. Waayo qofka haddii si qaldan daawadan uu isticmaalo, jirkiisa ayay maandooriye ku noqon kartaa oo waa daawo aad u daran oo u baahan in dhakhtar uu qoro. Daawadan waxa ay ku timaadaa kiniini tablet ayay ku timaadaa, cirbad injection ayay ku timaadaa, suppositories ayay ku timaadaa, inta way ku timaadaa.
indication daawadan waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo xaaladaha xanuun ee daran, waxayna si toos ah wax uga qaban kartaa neerfayaasha nervous systemka ayay si toos wax uga qaban kartaa. dhakhaatiirta neerfayaasha ku takhasusay inta badan way isticmaalaan daawadan, sida qofka marka uu waaliyaha oo kaleeta madaxa looga jiro inta badan dadku way isticmaalaan dhakhaatiirta ah. sidoo kaleeta waxaa loo isticmaali karaa xanuunka kusoo boodka ah, qofka marka uu pain acute pain qofka xanuunka uu kusoo boodo waa loo isticmaali karaa. sidoo kaleeta chronic pain qofka marka xanuunka ku raago oo kaleeta xanuun waqti badan hayo oo kale waa loo isticmaali karaa. mararka qaarkood waxaa loo isticmaali karaa xanuunka foosha ee aadka u daran, dumarka markay dhalayaan oo foosha ay haasoo kaleeta xanuun daran marka uu hayo iyadana waa la isticmaali karaa morphine. waa loo dosage isticmaalka daawadan inta badan waxaa la siiyaa daawadan dadka waaweyn, waxaana qiyaas ahaan laga qaadan karaa 20 mg 4 saac mar. 4 saac mar waxaa fiican in laga qaato hal mar in laga qaato 20 mg ayaana daawadan inta badan la isticmaalaa. 6 xabo ayaana qofka uu ka qaadan karaa. waxaa fiican qofka inuu qaato 4 saac 2 xabo inuu qaato. haddii hal xabo uu qaato oo wax fiican u qabatan waxaa si fiicnaan lahayd in xashas xabo lagu daayo. side effect dhibaatooyinka waxaa ka mid ah daawo kasta waxay leedahay dhibaato imaan karta. qofka marka daawada la siiyo dhibaato ayaa ka imaan karto. marka qofka waxaa loo baranaya muhiimada loo baranaya ayaa waxay tahay waxaa ogaanaysaa dhibaatadan timid qofka xanuun ayaa ku imaaday, dhibaatada ku imaatay haddii ay tahay daawada mid ay sababtay iyo haddii ay tahay mid xanuun kale oo keenay inaad kala garan karto ayaa fiican oo daawadii side effectigeeda ay garanayso. tusaale ahaan daawadan side effectigeeda waxaa ka mid ah lalabo nawsiya ayaa ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah matag vomiting ayaa ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah calool fadhi oo kaleeta constipation qofka in caloosha ay ka fadhiisato ayaa macquul noqon karta. afka oo qalla dry mouth ayaa macquul ah. cuntada oo istaagta loss of appetite ayaa imaan karta. intaan oo dhan ma wada imaan karaan, laakiin qaar ayaa ka imaan karo. hal ayaa imaan karto, 2 ayaa imaan karto, mana imaan karto mararka qaar. laakiin waxaa la rabaa in qofka garanayo qofka daawadan effecti kasta daawo kasta ee leedahay inuu garanayo ayaa fiican. qofka marka uu health professional uu yahay sida pharmacistiga, nurseska oo kaleeta dhakhtariska inta badan waxaa la rabaa in daawada garanaysa effectigooda si uga caawiso in xanuunkan imaaday uu garto durbo uu fahmo. contraindication lama siin karo. hooyada uurka leh daawada ma qaadan karto bilaha hore iyo caruurta yaryar. bilaha hore maamada uurka leh ma qaadan karto daawadan. haddii hore waxaa soo sheegnay waxaa la siin karaa dhahna daawadan hooyada uurka leh, waayo marka foosha ay ku jirto waa bilaha u dambeeyay ayay qaadan kartaa, laakiin bilaha dambe lama qaadan karto. waxaan u qaadanaysay in xanuunka daran ee hayo hooyada foosha in ay ka yareyso ayaa loo isticmaalayaa. marka hooyada uurka leh ma qaadan karto bilaha hore iyo caruurta yar inta lama siin karo. qiyaasta laga qaadanayo daawadan waa 6 xabo, in ka badan lagama qaadan karo. haddii aad noogu cusub tahay fadlan subscribe saar, like saar, share dheh. wixii ra'yi iyo qoraal ah noogu reebta qaybta commentiga. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. mahadsanidin.